munaasabad lagu daafurayay xarunta cusub ee shirkadda xawaalada Taaj ayaa lagu qabtay magaalada Shaariqa ee wadankani isku taga Imaaraadka Carabta waxaana munaasabadani lagu daafurayay xafiiskani cusub ee xawaalada Taaj ay ku yeelan doonto magaalada Shaariqa ka soo qayb galay dadweynaha iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankani isku taga Imaaraadka Carabta waxaana halkaasi hadallo dhiirigelin iyo hambalyo ka soo jeediyay qaar ka mid ah ganacsatadii iyo shacabkii ka soo qayb galay furitaanka shirkadda xawaalada Taaj xarunta cusub ay ku yeelan doonto magaalada Shaariqa ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay oo munaasabada daafuray maamulaha xafiiskani cusub ee xawaalada Taaj Daawud Saciid Cali isagoona sheegay faa'iidada ugu jirta shacabka ku dhaqan magaalada Shaariqa iyo guud ahaanba Soomaalida ku dhaqan wadankani isku taga Imaaraadka Carabta in xarunta cusub ee xawaalada Taaj laga hirgeliyo magaalada Shaariqa waxaan maaragtay rabaa inaan wax yar ka yiraahdo service-ka Taaj service ay qabato oo ah saddex qaybood banking iyo big up cash iyo mobile money oo loo yaqaano MMT haddaan wax yar faahfaahiyo banking markaan leenahay waxa weeyaan markaad meeshaan joogto aad doonayso inaad Soomaaliya aad u dirto lacag oo aad ku leedahay maaragtay bankiga Salaama banki waxa weeyaan lacagtaadii si fudud adigoo meesha jooga ayaa akoonkaadii ayaan ugu shubaynaa sidoo kale waxa weeyaan maaragtay service kale oo bankiguna uu sii dheeryahay ma doonayo inaan kusii dheeraado big up cash waxaan ula jeednaa TMT oo maaragtay aad wada taqaaniin service-kaas asagana waan idin haynaa mobile money oo maaragtay MMT ah oo Soomaaliya kaliya ah waxaad la socotiin in service-kan runtii in badan oo maaragtay Soomaalidu ay aad iyo aad u mahadiyaan markay heleen service-ka noocaana service-kaas oo runtii magaalada Shaariqa in muddo ah ka maqnaa oo ay aad iyo aad u hadalhayeen oo ay lahaayeen sidee maaragtay nagula soo gaarsiin karaa ayaan anagoo maaragtay runtii ka tarjumaynaa dalabkooda una ballan qaadnay inaan ka furi doono insha Allah tacaala branchi ayaan maaragtay caawa ayaan maaragtay runtii ugu hambalyeynaa inaan reer Shaariqa aan uga furnay branchiga isaga ah branchiga marka waxa weeyaan runtii waqtigii ay ku lumi jireen meelaha ka dheer kuma luminayaan waa Mubarak Center oo runtii center u ah magaalada Shaariqa isla markaasna ay ka helayaan maaragtay service-kii ay u aadi jireen meelaha dheer xawaalada halka laga furay Imaaraadda Shaariqa waxaan leenahay dhamaan anigoo ku hadlayo dadka degan Imaaraadda Shaariqa waa xilli loo baahnaa in laga furo Imaaraadda Shaariqa xawaalada Taaj service waxaan leenahay maamulaha iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee degan Imaaraadda Shaariqa Mubarak waa xilligii loo baahnaa waana tilaabadii loo baahnaa hore loo qaaday waxaan u rajaynaynaa mustaqbal fiican iyo horumar iyo bashbash barwaaqo marka koowaad waa u hambalyeynaa shirkadda xawaalada Taaj iyo maamulkii ku fikiray arrintan service-ka ah sababtoo ah dadku waxay u baahan yihiin jaanisyo badan cid kasta oo ku fikirtaa inay service-yada noocaan ah oo dadka wax u fududeyn kara ay qabatane waxaan xaq u leenahay inaan u hambalyeeno garab istaagno soo dhaweyna sida ganacsatada iyo shacabkaba xawaalad waxay noo sahashay arrimo badan oo mobilka ah waan ku mahadsanyihiin waxaan looga baahnay magaalada Shaariqa dhowr mar baan oo cajmaa ka soo baxay xawaalad raadiyo waaye marka aad baan ugu hambalyeynaa maamulaha iyo dadkii isku howlay arrintan oo ah in la furo xawaalad Taaj Fast Pay xafladani ayaa ahayd xaflad si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu daafurayay xarunta xawaalada Taaj ee laga hirgelinaya magaalada Shaariqa Abduqaadir Axmed Sheekh warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Shaariqa